Soomaalidu waxay hore u tiraahday ama hore ugu mahmaaday hubsiimo hal baa la siistaa. Maanta waxay ku dhacday waxa weeyaan muuqaal baan diyaarinaya ugu talagalay inaan YouTube ka soo geliyo oo aan ku sharaxay posterka Man of the Match-ka ah oo aanu sameynay oo aanu Cristiano Ronaldo ka dhignay ayaan ugu talagalay inaan soo geliyo. Muuqaalkii waxa qabsatay waxa weeyaan markaan iminka sidii edit garee oo muxuu ahaayay marka waxaan sameeyaa markaan edit gareynayo muuqaalka codka gaar baan u soo edit gareeyaa oo codka intii aan qaado oo aan Adobe Audition keeno ayaan halkan ku edit gareeyaa. Halkan markaan ku edit gareeyo kadib baan haddana software-kan video ku edit gareynaya hadduu Vegas yahay hadduu Premiere Pro yahay iyo hadduu Camtasia yahay ayaan keenaa kadib baan dib u edit gareeyaa. Marka waxay ku dhacday waxaan sameeyay codkii iyo muuqaalkii kala saar. Right click markaa muuqaalkayga taabtay muuqaalkii codba lama socdo oo waa video kaliya. Waan yaabay oo saanaan idhi waan xaniisay balino cod ku shaqeynaya dhageyso waxa la yiraahdo cod oo la socdaaba ma jiro. Marka waxay ku dhacday waxaan ku duubayaa ama screen recording aan ku sameynayay Camtasia recorder software-ka loo yaqaano ayaan isticmaalayay oo imika halkan ayaa aad ka arki kartaa iimama furna halkii loogu talagalay microphone-ka in loo isticmaalo. Haddii aan furo imika waxaad arkaysaa microphone-ku shaqeynaya codkii way duubaya laakiin way iga xidhnayd markii hore waxa filayaal wax microphone ay furanba mu jirin muuqaal kaliya bay duubasay imikun baan arkay inaan waxa la yaalo wax cod oo la socda aanay jirin. Marka waxa weeyaan casharka aan anigu ka qaatay waxa weeyaan maadaama waqti fara badan uu kugu qaadanayo waliba hawlahan video creator marka tay ama aad muuqaal sameeyay tahay imika muuqaalkan wuxuu ugu qaatay waxa weeyaan 4 daqiiqo maraysa. Muuqaalkan waxaan bilaabay 4 oo buura ayaan bilaabay inaan record gareeyo. Marka diyaarintiisa iyo preparationkiisa waa hawl gaar ah oo maalin hore ayaan sii diyaariyay qaabka aan u sameynayay isaan ka dhigayo laakiin duubitaanka recording-ka waxaan bilaabay 4 oo buura ayaan bilaabay. Marka 21 daqiiqo ay ugu qaatay inaan muuqaalkan duubo oo aan muuqaalkan duubayay. Marka haddana editing-kiisu wuxuu ugu qaataa 1 saac iyo bar wax ka badan ay ugu qaataa inaan jarjaro codka hagaajiyo haddana aan isku beego wixii ma garanaysaa oo waxa jirta muuqaalka markaad iminka edit gareynaysa aad jarjarto aad ka saartay errorada haddana waxa la sameeyo waxa weeyaan aad dib u soo dhageysato muuqaalka inaad kow ka soo bilowdo aad dib u soo dhageysato muuqaalkii balin wax error ku jiro iyo in kale. Laakiin haddii aad intaad jarjarto un aad export gareyso hadhow waxaad ku arkaysaa error aadan filayn inuu ku jiro in kale ayaa kaaga soo baxay marka dib baa loo hubsadaa. Marka waxaan ku sheegay waxa maanta casharkan meesha ka qaatay hawl wal oo aad bilaabayso markaad doonayso inaad bilowdo inaad hubsato waxa uu saxdi yahay oo sidii saxda ah uu kugu diyaarsan yahay. Hadii kale sidaas oo kale muuqaalaad 30 daqiiqo duubaysay aad arki doontaa waxa la yaalo wax ka jira aanu jirin ama screen recording ku aanu ku soconin ama muxuu ahaayay codku aanu ku duubmin sideedoo kale ayaa kugu dhici doonta. wax kasta hubsiimo hal baa la siistaa Soomaalidu hore u tiri. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.